السلام عليكم ورحمة الله. marka lagu soo dhawaado channelkayga so arkaysan Chicago Bulls waa teamkayga waxaan ka hadli doonaa maanta sida lagu ogaado fake friend, saaxiibka beenta ah, saaxiibka beenalaha, saaxiibka ku niyajabiya, saaxiibka cadawga ku jabiya, saaxiibka markii lagu xamanayo dhageysta kadib warka ku keena meeqa mar maqashay saaxiibka ku dhahay hebel wuxuu ka sheegay laakiin wali hal mar ku istaagin dhahan wax ma ka sheegi kartay ninkaas anoo joogo. So dadkaas ayaa ka hadlaynaa maanta sababtoo ah kulligan waa soo aragnay qof fake ah, qof saaxiib fake ah, maybe aad naftirkana saaxiib fake taa laga yaabaa dartaan oo videogan ku bedelo. So midda koowaad lagu ogaa saaxiibka fake wuxuu yahay waxa waaye gossip, waa mid war badan. wuxuu ku sheegaa hebelaa dhahay, hebelaa kan dhahay, hebelaa san sameeyay, hebelaa sameeyay, hebel wuxuu dhahay hebel wuxuu ku dhahay saas. So maanta hadduu macni qofkaas maanta qof kale wuxuu ku sheekaysteen kaaga sheekeynaya ma kula tahay inuu sirtaada ilaalinayo? maxaa ka dhaadhicinaya inuu adiga qofkaas sirtaada ka qarinayo hadduu labada qofood sirta ay lahaayeen ku sheegay? So midda koowaad waxaa ku ogaanaysaa waa mid war badan. hebelaa dhahay iyo hebelaa dhahay bas waa shaqadiisa isaga, lagama yaabo marna inuu ku difaaco meesha wax lagaaga sheegaya, laakiin warka si lagu keenayo yaqaana. So ruuxaas oo kale mid waxa lagu ogaadaa inuu fake yahay, saaxiib wanaagsan u ahaan. ruuxaas oo kale waa inaad iska ilaalisaa. saaxiibka fake ah midda labaad lagu ogaado waxa waaye ma ku sheego waxyaalaha wanaaga ah, ma ku sheego wax positive ah, ma ku sheego wax ku dhiirigelinaya. waa kan ugu horeeya ku dhaha ma la samayn karo. mar walba aad dhahdid inaad qorshe samaysid rabtid ama hadaf aad gaartid aad rabtid, waa kan ugu horeeya ka hor imaada ku dhaha niyo hebla sameeyay hadda kor way arrintaas uu samayn kari waaya iska daa, ma ku dhiirigeliyo. waa kan mar walba ku niyajabiyo saaxiibka fake ah. laakiin saaxiibka runta ah waxa waa wax walbo aad rabtid waa kan kula sameeya. haddaad dhahdid niyo maanta buurtaan afuulana waxa waaye kan ku dhahay waa samayn karnaa niyo wax la samayn karo malaha, heblaha hadduu sameeyey waa la samayn karaa. laakiin kan fake wuxuu ku leeyahay hebel ayaa ku dhacay adi ma samayn kartid, laakiin kan runta wuxuu ku leeyahay hebelkii kale hadduu sameeyey adiga waa samayn kartaa. So saaxiibka runta waa kan ku dhiirigeliya wanaaga jecel. saaxiibka runta ah, saaxiibka fake ah midda saddexaad lagu ogaado waxa waaye saaxiibka fake ah mar walba wuxuu ka taliyaa inaad wax xun samaysaan. waa kan kusoo waca markii party uu jiro, xaflad jirto, waa kan kusoo waca markii micnihii clubyada la aaday kusoo waca, waa kan aana marna ku xasuusinin ilaah, marna aana ku sheegin in wanaag uu jiro, marna la dhimanayo ku sheegin. saaxiibkaas waxa waaye mid fake ah aana jirin maxaa la dhahaa real nigga oo kan waxaas waa been. hadduu saaxiibkaa mataqaana saaxiibkuma tahay manin soortayda una manin aniga ila tira misna aniga iga tira manin hadalkaygu tira manin sacabkaygu tuma misna sancadaala ah manin sawda badiyo misna suuqa soomira manin suuqanoo wacan misna saafiroo maran manin dumar ka firayo misna hadal ka saafay manin caashaq badanoo misna oodla dhaqanay. saaxiibka xun midda afraad lagu ogaado waxaa waaye balan ma laha. waa balanku been leh. wuxuu ku leeyahay yow haddaa ku imaanaya waa kusoo maraya haya 2 saacadood kadib imaanaya ama maybe mau imaanaya. waxaa balanaa leedahay inaa meel aadaan ama wax uu ku fuliyo ama wax uu ka saacideeyo. waxaa waaye ma imaado weligiis, waqti ma laha, promise ma laha, balan ma laha. wax walba aad ku heshiisaan waxaa waaye ninkii jibinaya. wax walba aa micnihii balan aa ku balantaan waa ninkii koowaad sharcigaas jibinaya. So saaxiibka afraad, saaxiibka fake ah midda afraad lagu ogaado waxaa waaye nin balan leh ma aha. saaxiibka fake ah ama beenta ah midda shanaad lagu ogaado waxaa waaye markay arrinta kaba dambeys gaarto oo meesha lagu kala baxaya gaarto. tusaale ahaan dhibaato ayaa dhacday, dhib ayaa ku qabsaday, familkaaga ayay wax gaareen, adiga ayuu wax ku gaaray. saaxiibkaas ma arkaysid. hadduu telefoonkiisa shidan yahay ayuu nasiib leeyahay, telefoonka ayuu dansadaa, lama helo. markay dhibaato imaado arrinta serious noqoto ninkaas ma taqaanid, kii aad taqaanay ma lama helo. So shantaas waxyaabood ayaa arkay in badan baa ku arkay saaxiibka dadka aad la saaxiibtid. So intaas daa ku arkay saaxiibada ay leeyihiin kuwa waa fake, waa kuwa micnihi hadhow markay dhibaato imaado kaaga baxa. channelka hataa ku cusub tahay waa taqaanaa wax la sameeyo subscribe, like, saabta gaarsi.